Daawade waxaan kula wadaagi doonaa arrintii Haykal iyo boqorada Isteelka. Halkan hambalyo ayaan ugu diraynaa maadaama meherkooda uu dhacay. Laakiin arrinta caqabada ku ah ayaa waxay tahay intaan kula wadaagin waxaan si sharaf leh niga codsanayaa Soomaalida qalbiga wanaagsan oo walaalahayga ah waa inaad janaalka subscribe laad gambaleelkan u furt muuqaalkana aan like tala dhacay socodsiinta waa like wixii fikirkiina in commentiga arrintoodu caqabad soo hor istaagtay Musabixi Cabdi madaxweyne Somaliland ka ah ayaa caqabad ku noqday jaceelkooda uu dhahayo Haykal xabsiga hala dhex dhigo maadaama uu mehersaday gabar Soomaaliya ka soo jeedo ka dhawaajiyay Musabixi Cabdina oo mamnuuc ka dhigay Soomaaliya gabar joogto in uunan mehersan karin wiil Soomaaliyeed. Arrinta saas uu leeyahay ay arrin la yaab badan ku hoos duugan Haykal iyo boqoradana markay ogaadeen Haykal hadalkaas uu ogaaday in uu mehersaday. Haykal waxaa loogu digay in uu Somaliland lug dhigin hadduu dhigane in xabsiga loo dhaadhicin doono gebigiisaba mar dambe in lana arki doonin uuna iftiinka ee ka qarin doonaan ayay ku ballan qaadeen. Arrintaas ayaa cajiib daawade muuqaalna lagama hayo laakiin in uu hanjabay ayaa la hubaa uu Musabixina hanjabaad aad u culus uu ku diray meeshu asiga rabana uu la beegsanayo mana dhici karta ayuu dhahay in uu guursado qof reer Somaliland asigoo Haykal ah ma dhici karta ayuu dhahay boqorada Isteelka inay isguursadaan maadaama maalmihii ugu dambeeyay boqorada Isteelka iyo Haykal xiriirkooda jacayl uu weynaaday ay labadoodana go'aansadeen inay is aroosaan laba lamaano isku nuuray ay yihiin ayuu ka soo horjeestay Musabixi Cabdi markuu maqlay in faraantigeliskoodii arooskoodaba ay dhameysteen oo sawiro ay soo sameysteen oo baryahan qadka loola wareegay. Arrintaas markuu maqlay ayuu aad ugu xanaaqay Musabixi ayuu hanjabaado culus u diray Haykal ma aroosi kartid adigoo nin Somaliland u dhashtay ah gabar reer Muqdisho ah ma aroosi kartid taasne marmarsiyo kuma noqon doonto waa nagu wallahi haddaad imaadid Somaliland in xabsiga gebigaagaba lagu dhigi doono aad dib dambe iftiinkana aayar u eegi doonin. Arrintaas oo loogu digay Haykal oo laakiin jaceelku waa ruux dareen qalbiga ka hayo ka hayana waxaas uguma jixinjixoonayo jaceelkooda ayaa u daran laba lamaana ayuu nolosha inuu ku uriyo rabaa. Musabixi Cabdi sidaan wada ognahay da'du way la tagtay qofku waa qof da' ah laakiin wuxuu hadda isku dayayaa in uu jaceelkooda labada lamaana caqabad ku noqdo maadaama digniin culus uu diray. Soo dhawow daawade waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddaad muuqaalka soo daawato fadlan waa naga codsi janaalka noo qurxi haddii Soomaalinimo jirto janaalka subscribe noo dheh gambaleelkana u furo waa intaasoo kaliya codsigeena daawade hanaga tagin daawade muuqaalkana noo like garee.